كوحوها مذا كموقة عرو وحيث كاميروين كقبنين حاجقو هادو عريسا وحداون دونتان قيب كمدا موقع كاسو عن هلي حاجي موسى سودي يلحوان تاريخ لي صوماليا مركل ايغو تاغيريال بدن كو دخلي غدها كونفورتا صوماليا وحاسيدو كلا موقع كان اد كو داون دونتان ميد كمدا وريسيدي تاريخ لا غلي او بخيي حاجي موسى سودي يلحو دوري 8 سنه كهور كلانتي وحنا وناغسنا قيارتا ودان كو صاحبني او idilkiinba meel walbo aad joogtaan waxa idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareey cid walba muuqaalka la gareeysa waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuray leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda u barakeeya inta awlaadonkaan ilaahay awlaad baariya hasi inta gurdoonkaan gur wanaagsan mustaqbal wanaagsan ay bawayna hasiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabta la gareeyana waxa rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena mal adduunyo ay safileen inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siyaa dambigoodii dambiga waalidkoodana ay bawla farbi subhanahu wa ta'ala uu ku azuma jannatul firdaws ala حاسدك وعلنا ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكودا بين يهوغي غساره ورب سبحانه وتعالى عن كجبرينا حاجي موسى سودي يلحو وكمدي هاي شخصيات كسامين تكل سياسة كونفورتا صوماليا حاجي موسى حلي وكمدها وقامياشي كوحا كل إسنا كونفورتا صوماليا وحوسهدا كمدها مركي وقدام بيسي حمناها برلمانكا قيبت عقل كسرية وهدا ومركا لو ترتميو حاجي موسى سودي يلحو وشخصي تاغير بدن كله كونفورتا صوماليا يركو وكسو جيدو وحنا حاجي موسى سودي يلحو لغو حسوستا عمل لغو أمانا إنو hadallada uusan la gambarin isla markaana si sax ah uu sheego ama uu abaaro hadallada afartii sano ee la soo dhaafay uu dagaal xoogan uu kula jiray kooxda filla Soomaaliya wali fadhiisa ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigoodana uu dhamaaday wuxuuna sidoo kale hogaamiyo uu ahaa ciidamadii kacdoonka ee koor yimid labadii sano ee korsadeen Farmaajo ifaad wuxuu ku guuleystay xaaji Muuse Suudi Yalaxow iyo hogaamiyaasha la midka in labadaasi sano gabi ahaanba la diido xaajiga maanta wuxuu gaaray Jowhar wuxuu tay afka in kasto kaamirooyinka qaarkood la diiday in la baahiyo hadalka xaaji Muuse oo la sheegay inuu dhalinayo caadifad aad u xoog badan wuxuu isbarbar dhigay awoodda ciidamada ee koonfurta Soomaaliya dhaqaalaha yaal ee sida uu maamulayo inaan ka soo jeedin deegaanka uu la jeedo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan daawano Muuse Suudi Yalaxow wareysigan waa mid taariikhda u galay wuxuuna xilligaasi si weyn u diidayay Soomaalida inay leeyihiin dad Kristaan ah kadib markii xeerka waa xeerkii ku meel gaarka ah ee bagaati lagu soo daray in Soomaalida qayb kamid ah Kristaan ay yihiin wuxuu sidoo kale si weyn u diiday xaaji Muuse Suudi Yalaxow nidaamka federaalka oo ah nidaam lagu kala qaybinayo ummadda Soomaaliyeed si degan u daabo wareysigan 12 sano ka hor uu bixiyay hogaamiye xaaji Muuse Suudi Yalaxow dad badan ay rajeynayaan in mar kale uu ku soo noqon doono xubinnimadiisa aqalka sare adifi ahay oo qalbigoodu san yahay oo dalku inuu kala go'in rabo ayaan waxaan rabnaa in loo bixi nimanka deeq bixiyaashaana inay soo dirsadaan ayagana dad kabo ayaga hadda deeqdi bixiyahay war Soomaaliya udana saana udana war qof wax u danay anigu marro meeshan hoog iyo balaya ka dhacay Soomaaliya laba qaybood oo loo qaybi isku diin ma ahan naliyo isku diin ma ahan waa yarta ee waxa ka daran sida loo kala qaybiyo hay'ad dalka oo u kala go'go hay'ad ayaa ugu xun ana ka hadii federaal leeyahay oo federaal saxira ribooriyaga dhulway war dadka halla warso yaa iga beera bada yaa iga badway wardadan waxaan ka celiyo haya waxay ku ribay waxaan inay cad islaamada dalka soo geliyaan kaliya wax kale aniga ma hadda hunguru qofaan uga baahanaa jirta ciidan hunguru uga baahanaa maanta aan badar galeyna cid ka mar mesegana ka mar ay nyaayana ka mar basalna ka mar kalluuna ka mar xoolana ka mar war wax oo dhanba magaalada waxay ma hayaan qowladan oo ay mataqaana aniga hadda dadka mudooda ay leeyihiin ayaa wax walba heesta saasoon ogahan dadku inay wax la cunaan rabno hadii la yiraahdo sida loo sheegay inta xamar ku jirto gur kule inaan ka bixino ma aan wal qasba oo ka erin oo beeraha ka erin oo niraaho war yaa meeshin taga tacbana meeshin colaadaas way waxaan ka digay wal cumada daadan raba inay isla noolaadaan ay isku ag noolaadaan laakiin dada waxay ka shaqeeyo hayaan waxay u jeedaan ama ay rabaan walaxaynan ogeeynin xataa raba inta xamar ku nool iyo inta deegaanada ku dhow ku nool haddii qof la arkaba leeyahay dadkaaga waa ku kaasaa milfa loo tuurtuur xagee geynayaan waa meeshay geynayaan bal hala warso waa ogaan la'aan ku arag waana talaanin xuntiisaha ka buuxdo dad xun talatooda ka buuxdo waa aragnay taladoo dhamaan naqaan baalkan la yiraahdo hadii maroodu meel ka baxdaadkiisa waa la yaqaan hadii dawca meel ka baxdana waa la yaqaan baalkan doofaarka la yiraahdo meel ka baxna waa la yaqaan raadkaan naqaanaa kaasna xaaji Muuse Yalaxow ugu warramay hotelka Hilton ee magaalada Nairobi maxsan xaaj
بري هدي أشرعي كبلابة تودي كسب سنة دستورك waxaan la wanaajiyo aan ku doodaynaa waxana waxa la yiri wax wanaagsanaa doono marka hore ayaa ififaalahooda laga yaqaan anagu wax wanaagsan aan rabnaa hogaamiyayaasha horta inay saxiixayaasha inay meel la isku geeyo buuga naftirkooda iyo wixii horta marka hore laga doodo la yiraahdo heerka wata la arko baryaa wata buuga sidoo uu yaalayaa u qor heerkii difaacaya barigaan aragnay nin waa difaaca warbul buugana wadanimadu ku egtahay bal kan hal akhri ninka wadaniyo buugay ka soo baxaysa maanta waxaa muuqatay in isu soo dhawaansho adiga iyo xaaji muuse iyo kooxaha la baxay group 8ka oo dhinaca siyaasadda aad isaga soo dhawaanaysaan marka ma la oran karaa tallaabadaasi waxay muujinaysaa in dhinaca siyaasadda aad isaga soo dhawdihiin kooxaha la baxay group 8ka inta fiican oo dhammaan isu soo dhaweeyeen جروب 8 هنقدانو جروب 6 هنقدانو جروب 6 هنقدانو جروب 9 هنقدانو جروب 8 هنقدانو وحي في عن ودن او ودنيين او رب Soomaali inay wax isku u hagaagaan diyaaraan oo nawas ku soo dhacay Abdi Qaasim iyo anaka maanta ra'yigayna waa isku mid waa Soomaaliya la kala qiimeeyay la hoojino jooga anaguna wali jooga waxaan waliba leena hal keeno Abdi Qaasim hal keeno barihiida muwaadiniinta kale oo dalka waxa ku la hal keeno dalkayaan qoy kalbeed madaxda mas'uuliyiinta waa soo gurbinaa iyo waa hulgaamal haday diido waa la weydiinaa waa loo gurguuranaa walaalo ayahay mataqaana idinka badamina leeyahay waa lagu noqonaa waa la iska wadanaa shaqada la iska wadanaa wixii waa loo dhamaanaya nimankaasi wax muhiim ah badan ay dalkoodu qabteen wax badan ay waxeeyeen dadka waa ka darajo sareeya wiili baa dagaal